بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال مeel kasto joogtaan soo dhawaada barnaamijkeena sanqaad oo alaaba aan uga hadalno horumarka dalka kaftanka sheekada iyo waliba dal jacaylka iyo horumarinta guud ahaan qofka shakhsiga Soomaaliyeed waxaan fursad helnay inaan la kulanno Cabdirasaaq Garaad Maxamed Cabdirasaaq waa abwaan Soomaaliyeed isla markaana maad iyo kaftan badan ku gabya wax badan ayaa dadku daawadeen gaar ahaan gabayada deegaanka geedaha iyo xoolaha laga sameeyay laakiin Cabdirasaaq waxa uu noo sheegi doonaa galabta fursadna oo helnay inuu aan ka duubno gabayo ku saabsan dadka shakhsiga iyo bini'aadamka gabayadaas waxay u badan yihiin kaftan saaxiibadiis iyo asxaabtiis oo anigu kamid ahaba uu ka sameeyay waxaan leenahay markasta ku soo dhawaada barnaamijka sanqaad Cabdirasaaq Garaad Maxamed ku soo dhawaad barnaamijka sanqaad abas aad u mahadsan tahay run ahaantii farxad iyo waxay tahay sharaf inaan maanta marti ku ahaado programka sanqaad oo aan aad u jeclahay dadka follow gareeyana kamid ahay waxaan rabaa maanta sida hore u sheegtay inaan halkan ku soo gudbiyo gabayii ugu horeeyay oo maansati xana ah oo aan la wadaagi doono bulshada maalmaha iyo toddobaadyada soo socda hadii Ilaahay yiraahdo maansa aad u weyn maahan abwaan baad igu sheegtay laakiin markii xaqiiqada loo hadlo waxaan u maleynayaa inay wada dheer iga dhiman tahay inaan abwaannimada gaaro laakiin ninka aniga noocayga ah oo kala Soomaalida hore waxay oran jirtay hal abuure afareyda iyo waxyaabaha tiriya marka afarey baan iska ahsan qiyaasay marka gabay afarey baan ku bilaabaynaa oo dacaayad iyo wax noocaas ku saabsan kaftan dhalinyaro dhaxmaray sida aad hordhac barnaamijka noogu sheegtaba waagii hore Soomaalidu xoolo iyo dagaalo iyo colaado iyo waxyaabo noocaas baa laga gabi jiray mostly marka gabayadu way siyaasadeysnaayeen baa la dhihi karaa gabayada marka gabayo oo social ah oo dadku ay ku kaftamaan iyo gabayadana aad ugu badna marka waxaan siri arma tolow dhinaca xoogaa wax ka yara dartaa gabaygan ugu horeeya sida adiguba la socoto ninku ku baxay waa isla adiga gabayadan inta aanan bilaabin markii hore inta aanan bilaabin aan dadka u soo bandhigno markii hore waxay noo dhaxayn jirtaa anaga iyo asxaabta markaan muddo isla wax badan aan maxaan ku raadayay waqti ku wada qaadanaba waxaan isniri talo armay fiicnaan lahayd in bulshada lala wadaago la soo gaaro xilligii dadka lala wadaagi lahaa marka kan kii ugu horeeyay buu noqon doonaa gabaygan wuxuu ku saabsan yahay nin inta cayilay calool yeeshay oo caloosha lagu ceebeynayo waxa laga yaabaa sanado hadii aan dib xasuusteena aan u celino in ninku uu calool yeesho waxay ahayd wax lagu faano batrooni hebel waa batrooni baa maqli jirtay waxay muujin jirtay hantida uu haystay intay laagta laakiin style-ka iyo lifestyle-ka dadka iyo waxa uu isbedelay ayaa muddo ka bacdiba waxaan soo gaarin xilli arinta ceeb loo arko sida gabayga qaybtiisa dambe ka dhadhansan doontaan waxa loola jeedaa dadka Cabbaas aan aqoon dhowr sano ka hor wuxuu ahaan jiray nin aad caato u ah oo maxaan ku raadayay si uu mararka qaar u labisto shaatiga laba funaad ka sii hoos qaadan jiray ninkii noocaas ah waxa dhacday wixii caato muddo ay isla soo mareen colaad fara badanba in waagii dambe Ilaahay uu ka dhigo dhalinyaradii asxaabta aynu ahayn qofkii ugu horeeyay shaqo hela shaqadii uu helay lacag salary waxba loo qoray mushaarkii loo qoro dhan maadaama ninkaan caato ay waqti dheer isla soo mareen wixii ugu weynaa uu sameeyay waxay noqotay inuu investment nafsadiisa ku sameeyo waxa dhacday isagoo xaafad saddexda waqti ka saaran in misana uu tago maxaan ku raadayay maqaayad oo maqaayadii buug looga furay halka mushaarkiisa dhameystiran uu geeyo waxa dhacday ninkii odaga ahaa caatu ka cararayay laakiin waxa dhacday muddo kooban gudaheed dhowr bilood gudaheed waxa dhacday in uu cayilay uu misana cayilkii ka sii darayo calool uu sii yeeshay calooshii markii waxay geysisay in dadka intii taqaanay asxaabta iyo qaraabada wixii dhan ay yiraahdaan waniyo calool baa yeelatay baashan iska yeereys isaguna waqtigii dheeraa oo caatada la soo maray awgiis wuxuu garan waayay in la gaaro xilligii uu joojin lahaa raashinkan tirada badan si kasta wax loogu sheeg ninka odaga ahaa wuxuu ku qaadan waayay waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah waxa jirta duruufaha waqtiga iyo dhacdo qof ku dhacda waxa jirta wax intaas oo sano loo sheegay waana wuxuu ka qaataa uu ka qaadan karin hadallada maalin maalmaha kamid ah waxa jirta marka gabar uu saaxiib la ahaa saaxiibkan Cabbaas uu la sheekaysan jiray haasaawo iyo xiriir nolol ay ka dhaxayeen sida caadada ah gabadhu markii ninka ay si ula yara dhaxsantaa wax isku daydaa inay reerka hooyo aabba cid oo dhan ay ku soo xirto aabba haduu jecel yahay nin wadaada iyo wax noocaas oo kala aabba wuxuu ka shaqeynaysaa wadaadnimadiisa hooyo haday jecesha wiil wax bixin badan waxa laga yaabaa mararka qaar inay lacag uusan soo dhiibin xitaa maamada ay u keento asaga laftigiisa si ay u dareensiiso reerkooda inuu yahay reer waxbarasho oo isku toosan oo kaaliska araga habeenimada kamid ah waxa lagu casuumay gurigii xaafadda gabadha baa lagu casuumay Cabbaas
waxaa dhacday intuusan imaan ka hor sidii nin madaxoo la soo dhaweynayay in ilmihii la dhashay gabadha kuwii ka yaraa kuwii ka waaweynaa dhammaantood la safay. waa habeenka jimcaha inta badan waxba lama akhristo, waa habeen farax iyo iska baashaal. habeen jimcada ilmihii waxaa loo dhiibay buugaag jardiinka la fariisiiyey si loo dareensiiyo Cabaas reerkan reer waxbarasho oo isku aadan inuu yahay. Cabaas markuu guriga soo galay albaabka laga furay, ilmo fara badan oo saf ugu jira, hooyadii inta taagan, aabe, dadkii oo dhan kaaliska si fiican loo soo dhaweeyay. waxaa jirta ilmaha yaryarka ahi mararka qaar jiliinka nolosha waxba kama fahmi karaan dadka waaweyn, laakiin in gabadhu yara baxsan tahay iyo maxaan ku raadayay ninkan odaga ahi gabadha lala riixaya way dareensan yihiin. gabadh yar marka waxaa jirta ilmaha ugu yareed oo 5 jir ah, gabadhii yareed waxay ku mashquulsan tahay meel kale inta reerku salaanta iyo waxyaabaha ay ku jiraan. soo waxaa dhacday in gabadhii yareed marka ninkan waxay la yaaban tahay nin calool weligeed maysan arag. waxay arki jirtay hooyadeeda oo uur leh, habarirteeda oo dhali rabta. calool marka haddii la soo qaado iyada waxay u taqaanaa dhinaca nin calool waa u dhimanaa. marka gabadhii waxay ku mashquulsan tahay maanta oo dhan ay eegaysaa ninkan calooshiisii. then waxaa dhacday gabadhii Cabaas uu sheekada ugu tagaa waxay ku baraarugtay gabadha meesha ku mashquulsan tahay hoos inta ka qanjiro fatiir baxnaa ord shaqadaada aad wax akhriso. then ninka odaga gurigiisa gal shaqadii soo dhamaystay. xilli dambe baa waxa si ugu soo gaartay sheekadii ninka odaga ka qabsatay gurigii uu sheekada u aaday. waxaan isniri tolow ninkii odaga ahaayee hadalka qalalan wax ku qaadan waayay haddii murti wax loogu sheego ma laga yaabaa ninkii inuu iscanaanto oo calooshii iyo waxa wax ka dhimo. marka waxaa laga sameeyay afrey yar oo muujinaysa qisadii dhex martay isaga iyo gabadhii yareed oo 5 jirka ahayd ee calooshiisa la yaabaneed iyo lisaano xaalka gabadha wixii uu lahaa macnaha. aad bay u kooban tahay, gabay aad u kooban, laakiinse aan balidin la wadaago. wuxuu ku bilaabanayaa sida tan. qaybta hore wuxuu ku sheegayaa ninkaani sida joogtada ah ee uu u diidi jiray inuu calool leeyahay had iyo jeerna uga dhaaran jiray, iyo sida dadku markasta ay u dhihi jireen warbahashaan iska baabi'i, iyo sida gabadha yareed ay wax ugu sheegtay. waxay ku bilaabanaysaa sida tan. dhuubnaan caloolayd waxaad dhowr sano aad diido ma dheeree haddaan soo dhargo badar ku soo dhiilay. macnaha markay tiraahdo nin calool baa leedahay waxa ku leeyahay urmay waa dhargsanaha nimayo maahan waxaan calool maaha u jeed. dhuubnaan caloolayd waxaad dhowr sano aad diido ma dheeree haddaan soo dhargo badar ku soo dhiilay. ma dhaayaad lahayn sawtan oo dhabi sidee toosan. soo gacanta ku riixayo wuxuu ku leeyahay bahasha saanay buu toosan tahay dhabi sidiisii. ma dhaayaad lahayn sawtan oo sida dhabi ma dhaayaad lahayn sawtan oo dhabi sidee toosan. si kastoo u dhaarata haddii dhawaq laga diido adiguna ka dhiidhisay inaad dhagaha jeer siiso waxay kugu dhabowdaa arrini dheelna ku dhammaatay. marka uu dhallaan yaro 5 sano weliba aan dhaafin uu dhaygag awgii indhaha dhinacna kaa aadin ee uu soo dhowaado ku dhaho dhawaq yaroo gaaban maxaad dhali rabtaa waan arkaa dhiisha kugu taale. gabaygaasi sida xaqiiqda ninka Cabaas ee laga tiriyay wax weyn buu u taray. maalmo kooban dabadood waxaan aragnay ninkii odaga ahaayo iska soo qoray jim. bilo kooban dabadeedna asagoo calooshii ridaan aragnay. waxaa jira rag kale oo asxaabteena oo gabaygaas wax looga sheegay oo ayaguna maxaan ku raadayay wax badan u taray. sababta hadda aan idin la wadaagayno waxa weeye in inta kale oo caloosha laba haddana dhageysanaysa ee ragga ah in ay bahashaasi iska dhahaan intii canug yar oo 5 jir oo kugu sheekaysan lahaa intaasoo kugu shidan canug yar oo 5 jir. waxaa kale oo appreciation fiican ka muujiyay gabaygan dumarka Soomaaliyeed oo warqad noo soo diray yiri maxaan ku raadayay arrin dib weyn nagu haysay oo aan rag qaaban ugu sheegnay aan weynay baad ka hadashay. marka gabaygan waxaan u aragnaa ay dhaheen gabay dumarku ay tiriyeen rag ay u tiriyeen. marka siday doontaa ahaatee hadiiba end goalka laga gaarayo uu yahay in caloosha la iska yareeyo oo raggu style ay noqdaan waxaan u maleynayaa guusha gabayga in la gaaro. aad baa u mahadsantahay Cabaas. aad u mahadsantahay gabayga aniga laga tiriyay inaan barnaamijkeena aan galabta marti koow ka dhigno waxa waaye asxaab fara badan ayaa gabaya laga tiriyay la xusi doona maalin kasteeto. marka waxaan u maleynayaa in dad badan ay u diyaar garoobi doonaan. sida iga muuqatana aad aan ugu faraxsanaa maanta in Cabdirasaaq caloosheeda gabay uu ka tiriyo marka waxaan muujinayaa inaan markasteeto anoo neefta isku celinayo wali waa arkay sida hore u ahaan jirtaba. waxa aad ii soo jiitay erayo fara badan oo ay kamid yihiin in kastood ka dhiidhiso inaad dhagaha jeersiiso. waxa xaqiiqo in markasteeto markii lagu yiraahdo jimaad aatid iyo ma tagtid iyo leedahay waxba iguma yaalaan in neefta in isku celisiyo. waxa hasta saaxiibo fara badan oo aan markaan sawir galaynana daqiiqadahaas sawirka la galaayo neefta isku celiyo oo fursadaas ma aragtay aad uga faa'iideysanayay intii ay neefta isku celinayaan. aad u mahadsantahay Cabdirasaaq. waa barnaamij qiimo badan waaye gabay waxtarna waaye. waana kaaga mahad celinaynaa in aad barnaamijkaas nala wadaagtid. barnaamijkeena Saanqaadna galabta intaas ayuu ku egyahay.